meeshaan isla joognaa secretary general Cumar Hussein waa hoggaamiyaha guud oo Islii Business Association. maanta waxaan idin soo booqannay inaan idaacadda Star Television Network oo baaq ka jeedino oo u dirayno bulshada Soomaaliyeed oo ku nool Islii iyo guud ahaan Soomaalida waddanka Kenya ku nool. baaqaynana wuxuu ku saabsan yahay oo go'aanka bari la filanayo oo ka soo baxaya maxkamadda cadaaladda adduunka oo ku saabsan dooda u dhaxaysa waddanka Kenya iyo Soomaaliya oo la isku haysto dadweynaha Hindiga. marka waxaa dareen oo na soo gaaray oo war degdeg ah waxaa weeye dhalinyaro ayaa is-abaabushay inay banaanbax iyo rabshad dhigaan go'aankaasayto kadib. waxaan baaq soo jeedinaynaa annaga waxaan nahay bulsho Soomaaliyeed oo ammaanka jecel oona taageersan dowladda Kenya. markasta Kenyanaanu nahay waana wadani. marka waxaan rabnaa inaan la safarno madaxweynahayni iyo waddanka Kenya oona muujino wadanimadayni. tan kaleeto ganacsiga iyo degnaashada bulshada waa muhiim. mar rabshad iyo qalalaasi hadduu soo galanna dhibaan soo gaaraya. tafadal Soomaaliya meel kasta oon joogno aan ku dadaalno sifa oo nabadda iyo xasiloonida loo adkeeyo. dowladdana waa ka warheshay berri waad arkay doonteen in askari iyo koofiya gaduud iyo waxaan kulli sifa oo amniga lagu sugo oo lagu soo diro Islii. marka intaas rabaa waxaan ku wareejinayaa secretary general Cumar Hussein inuu ku yiraahdo. bismillah go'aanka annaga waxay baaqan jeedinayna waa baaq in xasiloonida iyo dadka ay dhowraan go'aanka maxkamadda oo ay dadka ay falcelin ay ka sameeyeen go'aanka ICJ ay ganacsigoodii iyo waxay iska wateen maalmahooda shaqadooda iska wataan sidii caadi ahayd ayna ku kicin dad shaqo la'aan ah oo rabsho abuur ah oo mise wax kale ku fikirsan mise damaca wax kale inay rabsho ka kiciyaan ganacsi goobtan waa wax goob weyn oo ganacsi Eastern Central Africa weyn ayaa Islii ku taal inay marka amnigooda ilaaliyaan oo wax noocaas ay ku kicin ayaan kula dardaarmaynaa. guddiga baaqaas guddi ahaan aan u diraynaa dadka Soomaalida oo Islii ku ganacsada. waxaa kale u diraynaa dadka isku dayay in rabshad iyo waxaas kicinaya in amniga la sugi doono. laamaha amnigan waa u sheegnay inay amniga berrito oo la adkeyn doono. qofkii qalad lagu arko hadhow meel kale la geeyo mise dhibku isagaa raadsaday gacmihiisa lugihiisa ku raadsaday ay noqonaysaa. marka waxaan leenahay bulshada Soomaalida meel kasta ay joogaan annaga muwaadin Kenyaan aan nahay inaan u hoggaansano maxkamadda waxay soo go'aamisay wixii Kenya qabta go'aanka Kenya ayaan go'aanka noo annaga wixii Kenya go'aankeeda iyo mowqifkeeda ayaan la taaganahay Soomaalida Kenya ku nool.